Ashraf Hakimi been bay iga sheegayaan sumcadda inay iga diraan ayay rabaan. Daafaca midig ee Paris Saint-Germain Ashraf Hakimi ayaa waraysi uu siiyey barnaamijka Click kaga hadlay eedeymaha uu wajahayo isagoo si gaar ah u xusay sida uu been abuurkaasi u saameeyey qoyskiisa. Hakimi ayaa yidhi weligii qof iima geysan dhaawac intaas le'eg aniga way igu adkayd welina way igu adag tahay sababtoo ah marka been badan la qoro aad bay u dhaawacaysaa gaar ahaan qoyskayga. Carruurtayda weli way yar yihiin ma yaqaanaan internetka welina wax ma akhriyaan laakiin maalin ayay akhrisan doonaan waxyaabahan oo kale. Aniga ahaan inay arkaan been sidaan oo kale ah oo laga qoray aabbahooda waa wax aan fiicnayn mana doonayo in cid kale lagu sameeyo. Hakimi ayaa intaas ku daray ciyaaraha kubadda cagta dad badan ayaa isku dayay inay naga faa'iidaystaan haddii aadan ku hareeraysnayn dad wanaagsan waxyaabo sidan oo kale ah way kugu dhici karaan. Kadib wixii igu dhacay waxaan bedelay waxyaabo badan iyo dad badan hadda goobteeda dadkii igu dhow aad bay u yar tahay mana la ogola cid kale inay soo gasho. dhinaca kale cadaadiska Robben Amorim oo sii kordhay iyadoo tababare Bundesliga ah uu sheegay inuu doonayo shaqada Man United. Tababaraha Manchester United Robben Amorim ayaa cadaadis weyn kala kulmaya garoonka Old Trafford waxaana durba soo baxay musharax doonaya booskiisa. Kooxda Eintracht Frankfurt oo si heer sare ah uga ciyaaraysa Bundesliga isla markaana soo saartay xidigo ay ka mid yihiin Omar Marmoush iyo Hugo Ekitike ayaa tababaraheeda Dino Tomola qirtay inuu jeclaan lahaa inuu mustaqbalka noqdo macalinka Man United. Isagoo la hadlayay wargeyska Jarmalka ee Bild ayuu yidhi waagii aan ciyaari jiray ciyaaraha kombiyuutarka hal koox ayaan mar walba dooran jiray waana Manchester United. Waa hubaal inay noqon lahayd wax qurux badan mustaqbalka inaan macalin u noqdo maxaa yeelay waa naadi cajiib ah. Markii aan dhalinyarada ahaa Manchester United waxay ahayd mid lala barbardhigo Real Madrid naadiga ugu weyn adduunka. Tomola ayaa la sheegay in loo bandhigay shaqo iyo heshiis dhan 6 milyan oo pound sanadkii oo ka yimid Sacuudiga balse uu iska diiday. Dhanka kale Amorim ayaa cadaadiska wax yar ka degay toddobaadkan kadib markii United ay ku garaacday Chelsea 2-1 kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League. Nidaamkiisa 3-4-3 ayaa si weyn loo dhaliilay kadib guuldaradii ay kala kulmeen Manchester City. Hase yeeshee tababaraha reer Portugal ayaa ku adkaystay inuu sii wadan doono nidaamkiisa taas oo ugu dambeyn guul ka dhalisay kulankii Blues. FA Ingiriiska oo Chelsea ku soo rogay ganaax culus kadib guuldaradii Man United. Kooxda Chelsea ayaa lagu ganaaxay lacag dhan 25,000 kadib dhaqankii ay muujiyeen kulankii ay Manchester United garaacday horyaalka Premier League. Sida ay sheegtay Daily Mail Chelsea ayaa qaadatay 6 kaar oo jaale ah intii lagu jiray ciyaarta. Mid ka mid ah waxaa la siiyey tababaraha kooxda Enzo Maresca halka goolhaye Robert Sanchez casaan toos ah looga saaray garoonka. Sida ku cad xeerarka FA-ga koox kasta oo qaadata ugu yaraan 6 kaar jaale hal kulan gudaheed waxaa lagu ganaaxayaa lacag. Ganaaxa ayaa kordha haddii xadgudubkan la sameeyo in ka badan hal mar xil ciyaareed gudihiis. Xil ciyaareedkii hore Chelsea ayaa ahayd kooxda ugu kaararka badan Premier League iyagoo 3 jeer dhaafay xadka 6 kaar. Waxaa lagu ganaaxay 25,000, 50,000 iyo 75,000 sida ay u kala horeeyaan ganaaxooda. Ugu dambeyn muxuu Eberechi Eze ka yiri goolkiisii ugu horeeyay ee Arsenal? Eberechi Eze ayaa ka hadlay shir jiraa'id kadib markii Arsenal ay xaqiijisay u soo bixitaanka wareegga 16 koobka English League Cup kadib guul 2-0 ah oo ay ka gaareen Port Vale. Eze oo dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee Gunners ayaa yiri waa arrin gaar ah mar walba waan sugayay inaan gool u dhaliyo kooxda. Goolka ugu horeeya ayaana ah mid aad u macaan. Wuxuu sii raaciyay garoonkani waa meel adag. Waxaa muhiim noo ahayd inaan goolka koowaad helno si aan tartanka ugu sii jirno. Eze ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaad aragteen waxa ciyaartoyda beddelka ku soo gala ay sameynayaan marka la soo geliyo ciyaarta. Tani waxayna siisaa tamar cusub taas ayaana waxa aan u baahannahay. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixinadii koobnaa ee aan ugu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta ee caalamka. haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkana la soo gaartay ilaawan inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena aad sii share gareyso. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran mahadsanid.